noloshu waa wax kooban. ninka dhallinyaradii inta badan nolosha intaasoo ku arka waayo wuxuu tiriyaa intuu jiray imsaa jirtay anuu 20 baan marayo 22 laakiin qofku markuu da' gaadho 60 meelaha markuu soo gaadho wuxuu isweydiiyaa war talow maxaa ka hadhay 5 baa ku hadhay ma 2 baa ku hadhay ma 10 baa hadhay intii xagga laga soo tirinayay dhammaatay hadda wuxuu xaggan ka tirinayaa war talow intee ka hadhay goormaynu odhan karnaa qofku wuu guulaystay ama wuu goldaraystay waayo qof walba xaqiiqada bini'aadamku uu wadaago ee uu wada rumaysan yahay baa geeri intaad doonto noolow waxaad doonto soo cun waxaad doonto soo qabo waad geeriyoonaysa idan xaqiiqda ugu dambaysa la gaadhaya halkan inta la joogo waa geeri intii ka horeysayna waa geeriyootay inta joogtaana waa geeriyoon doontaa waa geeri marka la geeriyoodo xabaal yar baa la isku wada ridaa haddaad xoolo badan shaqaysato bilyaneer ahayd 2 maroo yaroo cadcad inta lagu duuduubo ayuunba xabaasha lagugu ridi haddaad faqiir ahayd qaadaama dhargaan aan waxba haynin 2 maruunbaa lagugu duuduubay xabaashaa lagugu ridi haddaad magac iyo maamuus lahayd oo madax iyo wax soo martay maradaa unbaa lagugu duuduubaya halka unbaa lagugu ridaya haddaad nin iska xamaalo suuqiisa iska jooga ahayd maradan unbaa lagugu duuduubaya halkan marka dadkiiba ma isku wada noocba wixiiba ma maradan yare lagu duuduubaya ku dhammaanaya kee guulaystay markaa haddii wixiiba mara yaroo cad inta lagu duuduubay god lagu riday keebaa guulaystay dadkan noloshu waa inay hadaf leedahay waa inay qasdi leedahay markaasaynu garan karnaa yaa guulaystay yaan guulaysan in madaxweyne la noqdaa guul maaha ee waa mas-uuliyaad la kororsaday in lacag badan la helaa guul maaha ee waa mas-uuliyaad la kororsaday in magac weyn la helaa guul maaha waa mas-uuliyaad la kororsaday laakiin ama madaxweyne ahaw ama taajir ahaw ama magac lahaw ama miskiin ahaw inaad ilaahay raalli gelisaabaa guulah idan qof waliba wuu guulaysan karaa bimaa cindahu min imkaaniyaat buu ku guulaysan karaa waxaad haysataa intuu leeg yahay haddaad madaxweyne cadaalad iyo diin iyo akhlaaq iyo dhaqan iyo wanaag wada waad guulaysan kartaa alimaamu alcaadil 7 jannada carshuraxmaan harsanayuu ka mid yahay haddaad nin dhallinyaro oo dhowrsoon oo akhlaaq leh waad guulaysan kartaa shaabun nasha'a fii cibaadati illaah waad guulaysan kartaa haddaad qof yacni mustawaha nololeed ee aad joogto guushu markaa kuma xidhna adduunka inta kaa soo gaadhay magac iyo maamuus iyo hantina guushu kuma xidhna waad kadeednaan kartaa adigoo madaxweyne ah waad kadeednaan kartaa adigoo taajir ah waad kadeednaan kartaa adoo magac iyo maamuus leh waanad kadeednaan kartaa adigoo faqiir ah intaba kadeedku wuu la socon karaa guushuna way la socon kartaa idan guush iyo kadeedku ama guush iyo guuldarradu kuma xidhna waxa gacantaada ku jira iyo magac iyo maamuuska aad leedahay inta uu leegya kuma xidhna kaa kuma xidhna waxa uu ku xidhan yahay inta aad rabbigaa xidhiidha leedahay inta aad nolosha macnaheeda fahmayso inta aad garanaysa maxaad u nooshahay qof hadduu maanta dhaqaaqo socdaal galo meel uu socdaana aanay jirin se uu yidhaahdo mar qudha nasan maayo ow daalo muxuu kororhsaday waxba ma kororhsan soo maaha laakiin haddaad hadaf leeday haddaad rabto inaad berbere gaadho waa hadaf la garanaya mar umaad gaadhi doontaa waa hadaf muxadada nolosha haddaad hadaf dhaba ka yeelan weydo 60 sane ama 70 sane lagu siiyey way dhammaanaysaaye haddaad hadaf ka yeelan weydo oo ah inaad rabbigaa raalli geliso jannana raadacaysatid naarna ka badbaadid hadafkaa haddaad xaqiijin kari weydo noloshu qiimo ma leh wax kastoo agtaada yaallana qiimo ma leh waad kadeedantay inta kadeedan baad ku jirtaa haddaad intaa fahamtana inta guulaysataad ku jirtaa walow aqoontaadu ha yaraato tusaalaan idin siin
nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo fadhiya xadiidka bukhaari ayaa nin soo maray qoladii la fadhido yidhi bal ninkaa ka warrama waxay idhaahdeen waa nin hadduu gabadh ku weydiisto waa nin gabadh la siiyaa bay idhaahdeen hadduu shafeec erga kugu yimaadana waa nin ergadiisa la aqbalo hadduu hadlana waa nin la dhegaysta bay idhaahdeen mudan in la dhegaysto yani bini aadamku wuxuu wax ku qiimayn jiray haddii gabadh lagaa soo doontana waa nin dumarka la siiyo hadduu dankaa yeesho shafeeca kugu yimaadana waa nin magacio ergadiisa la aqbali karo hadduu hadlayana waa nin la dhegaysan karo nebigu wuu iska aamusay ma comment garaynin mid kalaa soo maray markaasuu yidhi kaa ka warrama markaasay idhaahdeen hadduu gabadh ku weydiistana mid loo guuriyo maaha hadduu erga kugu yimaadana ergadiisa ku la aqbalo maaha hadduu hadlana ku la dhegaysta maaha bay idhaahdeen yani nebigu wuxuu barayaa saxaabada mawaasiinta maxaa wax lagu qiimeeyaa bini aadamka see loo qiimeeyaa dabeetana wuxuu yidhi lamil'u haada min daak kaa hore iyagu lahaayeen waa wax walba wuu yahay dhulka muggiyo kaasa ninkan baa iskaga khayr badan buu nebigu yidhi waa hal nin iyo dhulka muggiyo kii kala ah maxaa halkan nin iyo dhulka muggii isweydaariyey waxa isweydaariyey mawaasiinta wax lagu qiimaynaya kala nooc aha waayo dhulka muggiyo naar ku sii socda geedi naareed ah faa'iido ma leh xabad jannada u sii socotaa dhaanta soo maaha hal qof xagga jannada u socda iyo dhulka muggiyo xagga naarta u guuraya dee faa'iido ma leh walidaalika buu nebigu wuxuu leeyahay dhulka muggi oo kaasa qof quroo kaasaa dhaama walidaalika qur-aanka ilaahay nebiyuu inoogu tilmaamay ambiyadu dhammaantood waa guulaysteen soo maaha nebi faashile miyaa jira maya haddana ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamay ambiyada qaar madax noqday oo dowlada maamulay oo jin iyo insiba u taliyey sidii sulaymaan iyo daawuud iyo ambiyo madax waaweynaa laga warramay waxaa kaloo qur-aanku ka warramay wa fariiqan taqtuluun ambiyo la laayey inuu wax maamulo daaya inuu wax qabtee kow laga siiyey baa ilaahay qur-aanka kaga warramay haddana waxaynu leenahay ambiyadu waa wada guulaysteen nebi faashili ma jiro ama guuldarraystay nebi waliba wuu guulaystay waayo hadafka xaqiiqiga ee noloshu garta noloshu maxay tahay buu fahmay dabeetana isagoo jidkii noloshaa ku socda ilan qof waliba waa dhimanaya ama halagu dila ama meel soko ku dhima qof waliba waa dhimanayaaye isagoo jidkii hayay ka baxday saa daraaddeed baa loo leeyahay wuu guulaystay laakiin dhallinyarada idin weydiiye ninka badaha isku maqiiqee ka booda ee naftu kaga baxdo iyo ka tallaaba ee yurub gaadhay ma nidhaana kaasi waa guulaystay midna wuu dhintay saas sax ma tahay yurub in la gaadhaa wax nafta loo bixiya miyay tahy in yurub la gaadhaa wax naftaba loo huro miyay tahy wax noloshu waxaad u noolayd miyay tahy oo haddii la waayo ay tahay inaad dhimato ayuha alaxibba dadka intiisa badan waxaa ka qaldan wixii loo noolaa markii la garan waayey waxa loo nool yahay ayaa ninba bad cidla'a ku geeriyoodoo meel kale ah qofba siduu meel u ordayay mid isagoo xoolo raadinayay ka baxday mid isagoo dad laynayay ka baxday qoliyahan dagaalama reer buu dagaalamaya wuxuu haystaa reerka kale hadday dad badan ka laayaan inay guulaysteen iyagoo faraxsan bay soo noqoneen maxaa qabateen waa jebinnay buu leeyahy reer hebel xabadi kama saydhin reer hebel haddii aakhiro loo diro miyaa la guulaystay reer hebel haddaynu aakhiro u diro ma guulaysannay yani dadku waxay garan waayeen wixii loo noolaa hadafulxayaa baa la garan waaye waxa loo noolyaa la garan waaye waxa wax loo baranayaa la garan waaye waxa loo guursanayaa la garan waaye waxa loo joogaa la garan waaye waxoo dhamme hadday lilaahi yihiin iyo ilaahay tiisa wax idin gaadhsiinaya waa fustu warabbi alkacbadu saxaabigu sheegayey ninkii midida la geliyey waranka la geliyey saxaabigii iyo geeriyooday wuxuu yidhi fustu warabbi alkacba waan guulaystay buu yidhi rabbiga kacbada le baan ku dhaartaye waana la dilay weliba dil qadriya baa la dilay
يعني دي الخيامة دي كورا نمانو تمادو oo marka hore wax ku sheegaan oo dabeetana nasiixadooda ka talinaysay oo marka aad u timaado mid intuu xagga daba ka maro waran ku galiyo hadalay tollay nimanku way khiyaameeyeen oo nimanku way dhakreen laakiin ninkan wuxuu arkayay nolosha wixii uu raadcaynayay inuu helo shahaada saadaradeed ma eegin qoladan khiyaamaysay iyo makriga la sameeyay iyo waxaan oo dhan uma muuqan waxa uu muuqatay halkuu u socday wuxuu arkayba inay dariiqii u soo gaabiyeen jannada loogu socday meel dhow inuu ka tallaabsaday saadaradeed buu wuxuu lahaa fuztu warabbi alkacba dhalinyarada waxaan idiin sheegayaa marka ina guulaysataan iyo ina guuldarraysataan waxay ku xidhan tahay hadafka aad xadidateen wax noolaada ma yahay oo cimri loo bixiyo oo waqti loo lumiyo mise maaha hadduu waxaa qiimaha leeyahay markaad gaadho waad guulaysatay haddii aanu ahayn waxaa qiimaha leh markaad gaadhaa unbuu habaan mansuura noqonayaa ayuunbaad waayaysaa wixii marka hore waxaad lahayd dee guul baad xaqiijinaysaa kan yurubu sii roorayaa marka uu badda nafta ku halqiwayay waxay islahaa guul baad gaadhaysaa laakiin markuu xagga kala tago ayuunbaabay noloshu waa cidhiidhi noqonaysaa soo BBC meelaha kama maqashaan mid isagu dee qantaradii ka tallaabo la waraysanayo leh haddaan sidan moodayo waayo wuxuu islahaa haddaad halkan ka tallawdo xagga kale mala jannaa ka xigtuu rajaynayay lacag iyo badhaadhe iyo barwaaqa iyo war sidanaa u dhibbantiinunbaa loogu dhibbanyay xaggaana waxba isma beddelin waxaa laga yaabaa dadka badh inay yidhaahdaan haye kuwii xaggaa tegaysa kuwa qaardaaraa soo dhistay maaha waa run laakiin reerkiinna waxaa laga yaabaa in 1 qof ka dhooftay imsaa daar soo dhistay 10 baa soo dhistay 999 kale ma isweydiisan xaggay ku maqan yihiin oo kuwa halkan jooga 10 ka mid miyaanay daara dhisan kuwa halkan jooga dadka halkan degan 10 ka mid oo daara dhistay ma jiraan waan tallaabinba ka badan kuwa halkan jooga intay daar dhisteen baa waxay ka badan tahay in xaggaa tagtay daarahay dhisatay waxaan uga jeedaa haddaad xataa soo dhisato sow godka geli maysid maxaa ka dambeeya noloshu waxay qiimo ku leedahay in la fahmo waxa loo nooliyey gaalada qaar badan baa maanta way isdilaan weliba gruubka isdila waxa ugu badan طبقة sare الطبقة الكادحة maaha dadka istila waa kuwa waxaysta waa injineerada iyo professorada iyo dhakhaatiirta iyo maalqabeennada waa kuwa dadka istila dad maqasho Yurub waa la istila dadka istila waa kuwa maxaysatadu isma disho inta badan waayo waa mashquulba maxay isu dileen waxay moodayeen inuu guul yahay baa markay gaadheen buu dhadhan samayn waayey waxay moodayeen guul ayaa markay gaadheen ayuu macno u samayn waayey habeen dhaweyd baa nin dhakhtari wuxuu lahaa waxaan dee dhallinyarada markaan nahayn buu yidhi wax baro wax noqo caynkan noqo dhakhtar noqo surgery wixii baanu noqonnay dabeetana markaan wixii noqonnay waa Yurub noloshii waxay noqotay buu yidhi in lagu yidhaahdo intaan jimcaha soo galo ilaa isniinta inaan dhakhtarka ku jiro waanad waqti aad seexato lahayn waxba lahayn saacad kasta lagu toosinaya soo kac beeshan baa la keenay mid baa sakaraada mid baa caynkana maxaan ku samaynaa dhowr iyo 30 saacadood baad soo fadhiyaysaa hadhow markaad noqoto waxaad noqonaysaa buu leeyahay adigoo daalan oo naftu ku haysato gurigii hudheelka haddaad tiraahdo wax cun waad ka wahsanaysaa waa daashay waa inaad cunno yaroo intaad gaadhiga sii waddo aad liqi karto waayo wuxuu rabaa sariirta hadduu gaadho inuu istuuro kadib markaan muddo waday buu yidhi baa lacagtiina dhadhan samayn war waxaanaad u nooshay waa maxay waxaan uu nool yahay ee uu intaasoo sane wax u soo baranayay ee doctorka u soo noqday ee qalliin u bartay ee mutakhasis u noqday ayaa markii uu gaadhay dhadhan samayn waayey waayo hadafkaa qaldan wuxuu noolaa baanu garanin tacbuu mu ka sii qaadaya daal iyo inuu seexan waayo dabeetana wixiiba intuu iskaga yimi meelaha yimi waxaan uga jeedaa iminka waxaad is leedihiin waxbaa maqan haddaad lacag badan hesho
maxaad samayn lahayd aad baad wax u cuni lahayd caloosha wax badan ma qaado ma lacagtu kuu badato intan aad iminka cunto ka badan ma qaado kadan haddii lagu ridana way xanuusataa oo dhiikar iyo macaan iyo kolestarool iyo baliya baas baa ku dhacaya dabeetana waxaa lagu odhanaya haddaad rabto inaad noolaato wuxuu dhan waa inaad ka yaraysaa idan maxaad ku samayn daashay oo naftaadii waxay u baxday in lacag badan la helo lacagtii badnayd markii la soo helayna wax macnay samayn weyde hawl badan unbay keensatuun iyo inaad dadka la tukan kari weydo markaas salaada soo galbo 10 albaabka sukiisii taagto aad sidii wax waalan albaabka dambe ka boodid inta waxaysato u fursa markay masaajidda soo galaan degdeg bay kaga baxayaan waayo tooma meelaan tahay nafta la isugu keenay idan noloshiiba aduu intaad ayar kabaha ka qaatad halkaa ka baxda cidina kuma daba socoto soocanka ma wax ku boodar garaynaya iyo wax ku dhibaya ma aragtid inta magac iyo maamuus kale kamarad baa lala daba ordaya iyo halkuu marayay waa kano waa luqluq bay marayaan inta mudane lafahooda bay u baqayaan imka dad madaxweyne noqoto de maqaaxida ka shaahimaysid xorriyadda waad waayaysaa maxbuus sharafeed baad noqonaysaa qol baad ku xidhantiyo meel laakiin lagu odhan maayo waa xabsiye waa qolkii madaxtooyada lagu odhanaya waa qol sharaf leh qolkii sharafta laakiin haddaad ka soo baxdo waa in askar iyo bunduqiyo iyo qoryo ku daba rooraan waa xabsi dhabaad gelaysaa yaa lagaa xabsinayaa intaad u talinayso intaasaad ka baqaysaa iska ilaalinaysaa ka fogaanaysaa marka waa xabsi sharafeed baa la yidhaahdaa waa maxaabiis madaxduye laakiin waa maxaabiis sharaf leh waa maxbuus aan wax cuni karin madaxda waaweyn dunida maqashaan wax ma cuno ilaa in laga dhadhamiyo mooyaane adiga ma cid baa cunada kaa dhadhamaysaa wixii kula macaanaadaba waad iska cuntaa ninkan wax walba uu ka shakisay cunadiisa waa in la soo dhadhamiyaa gaadhigiisa waa in la soo eegaa halkuu tegayo waa in mukhaabaraadka oo dhammi war ka bixiyaan meeshu maaha aamin maanta tegi kari maysid 10 kan casha ha ku dhaafaan iska sug maalinta dambe caynkaasay noqonaysaa waa inuu qof meel gaadho adigu meesha aad u baahato baskaa kaa xiga inaad fuusho soo saa maaha laakiin ninka madaxda ahi meesha u baahdaa sidaa maaha idan bini aadamku wuxuu ammaanta moodaya xabsi isu bedelay wixii uu rabay inuu xaqiijiyo ayaa xabsi isu bedelay ayuu waayay qofku xorriyadiisii uu ahaa qof bini aadam oo nool ayuu alxiba marka war noloshan adduun qiimo ma yaallo noloshan adduun ilaahay wuxuu leeyahay yaa ayuha alinsaanu innaka kaadixun ilaa rabbika kadxa walaqad khalaqna alinsaana fii kabad problemkaa isbedela maalinba problemka aad ka fakarayso unbaa kii hore ka gedisan mushkiladda nooceedunbaa isbedelaya imika waxaa laga yaabaa inaad leedahay dee mushkilad cunno yariya baa nahay soo 3 midhoo canjeelaabay islaamtuna siisaa naguma filla hadhowna mushkilad cunno xumiya unbaa ku helaysaa oo wax lagu odhanaya kana cuni maysid kana cuni maysid kana cuni cunnadii waad haysaa laakiin waa mamnuuc macaan baad qabtaa inta macaan cuni maysid barashar baad qabtaa inta dhanaan cuni maysid waa wax waliba waa mamnuuc imika waad xorriyad baad haysataa laakiin dee maqaaxida waa iska fadhiyaa maxaad haysaa baan ku hayaa laakiin ka madaxweyne wuxuu leeyahay mar uun yaa maqaaxidii kugu celiyaa iska shaahayso dadka tidhaahda war maxaa haysaane ma haysto idan nolosha problemskeeda isbedela laakiin guul male tani marka aad heer ka tallowdaba mushkilad cusub odoo isla mushkilad baad xallishay dhallinyara wadatiin hadda wada guurdoon baad tihin soo maaha laakiin maalinta guursataan carruur yaryar iyo dhakhtar iyo islaantii baa uurle iyo dhakhtarkaa la geynaya mushkilad kalunbaa kuu bilaabmaysaa adduunku waa dhibaato marka adduunku waa kabad waa daal waa beer xanuun inta la nool yahayna waa lagu jiraya waxaa ku jiray dadka kuwa ilaahay ugu jeclaa yaa rabbi ugu jeceliyay dunida dadkii noolaa soo rasul maaha rasushii loogu jeclaa baa ku jiray dhibtaa qur-aanku rasuul la dilay iyo rasuul la eriyaday iyo rasuul dagaalamay waxba waa laynooga warrabo nebi maxamed taariikhdiisii baynu haynaa calayhi salaatu wasalaam agoonnimo rajaynimo in laga saaro dhulku u dhashay iyo meeshiisii dagaal uu galo nafta la isugu waxaasoo dhib bini aadamku maruu marayay idan alxayaa hakada haddaba haddaynu rabno nolosha inaynu guul ka xaqiijinno guuli waa intaad ilaahay u dhowaato
haddaad ilaahay ku dhowaato noloshan baa fudaydmaysa xataa mashkilaadkeeda yasiir noqonaya mashkilaadkeeda sida loo xallilo ayaa fududaanaya nolosha tani waa kadeed hadaful xayaa haddaanad fahminna adoo daalan unbaad godka gelaysaa adoo daalan ama madaxweyne noqo ama taajir noqo ama bilyaneer noqo adoo daalan baa laba maro yaryar lagaaga duuduubaya wax kaa raacaya aanay jirin wax allaaliya waxaad u daashay waxba kaa raaci maayaan waxba kaa raaci maayaan madaxweynaan ahaan jiray lacag baan lahaan jiray iyo hebel baa leeyahay markay marada kugu duubayaan bay meydku u bixinayaan xataa magacaaga hilmaanayaan dib loo odhan maayo madaxweynaha xabaash si fiican u dhiga ama taajirka xabaasha si wanaagsan u dhiga ama aw hebel xabaasha si wanaagsan cidi ku odhan mayso meydka iyadoo lagu leeyahay unbaa lagu sii wadaya haddaba waxaa habboon indhuhu dhalanteed bay arkaan caqliguna ama maskaxduna dhalanteed bay aragtaa dhalanteedka soo ma taqaaniin meelaha markaad u kacdo woodwardka aad mooddo in biyo fadhiyaan maxaad tidhaahdaan ya okay ishu markay ka fog tahay waa biyo is leedahay laakiin hadduu caqligu si fiican u shaqaynayo waad garanaysaa inaanay biyo ahayn meesha cadceed hayso haddaad si caqliga seexiso aad tidhaa war bal ka wardoon waa intaasay biyo noqotaay caqli haddaad tidhaa war seexo war bal meesha ka wardoon waa intaasay biyo noqotaay markaad timaaddo maxay soo baxaysaa dhalanteed hamiga nafta ee dunida ku saabsan oo dhammina waa nooca wax kasta markuu kaa maqan yahay buu kuu yahay biyaha hilaacaya maalintaad se gaadho ayuu kula noqonayaa uun dhalanteedka aan wax weyn ahayn maalintaad gaadho un baanu wax badan noqonaynin haddaad buul ku jirto buulka waa lagu gama'aa soo maaha waa la seexdaa haddaad daarta ugu dheer lagu saarana waa la seexdaa wax ka badan lagama soo helo soo buulka laguma gama'o daartana waa lagu gama'aa waxa naftu raadinaysaana waa maxay waa inay gamaado inay maskaxda tan mashquulka ka yara baxdo la seexiyo si ay mar labaad u shaqayn karto meel kasta naftu way seexan kartaa nin Soomaaliyeed baa waxa laga sheegay hurda aan macaanaynna ma seexan cunno aan macaanaynna ma cunin weedhacaynkaasaa laga sheegay 3 masalo hurda aanan macaanayn ma seexan buu yidhi markaan u baahnu ma seexdaa markaad u baahan tahay markaad seexatana haddaad dhagax dushiisa ku seexato waad gamaysaa waa kaa imanaysaa markaanad see u baahnayn haddii lagu saaro sariiraha ugu fiican gami maysida waad burburaysaa cunnadana waxay yidhaahdaan wuxuu yidhi cunno aan macaanayn ma cunin waayo anoo gaajoonayaan un baan cunaa buu leeyahy gaajadu waa iidaan adigoo gaajoonaya dib wax lagu siiyo berigii qaxoontiyada la joogay ninka koob shaaha helaa wax ka macaani ma jirin saciga maaha ama in yaroo garowga helaa garowgaa candhuftaadaa iidaamaysa waayo gaajada wax waliba waa macaan noloshu waa sidaa maalin walba kaad heshaabaa kula qadhaadhaanayo ka kaa maqan baa kula macaan maanta haddii garowga lagu siiyo dhadhami maayo shaahina dhadhami maayo waayo ka kale sii maqan baa kula sii macaan biisaad raadinaysaa laakiin berri markay biisadu kaa ag badatana dhadhami mayso kuwa biisada haysta inaanay u dhadhamin soo ma ogidin ma dhadhanto idan nolosha hadba inta maqan baa macaan oo qofku isleeyahay war malaa intaa haddaad gaadho wuxuu way isbedeli lahayd ee adaa meel cidlaa fadhiyaad isku qancinaysaa laakiin intii markaad gaadhana isbeddel ma leh sidaa ogeed noloshu waxaan tiiviyada laga akhrinayo iyo warkan iyaan laydin mashquulinin waa beenaan waxba ka jirin dunida dadka isdila iyaga uu isugu dil badan reer galbeed meeday barwaaqaday haddaa sheegayaan soo saa ma ogidin statistiska dunida dadka naftooda dila waxaa ugu badan galbeed waxaana ugu yar caalamul islaami iyo afrika
kuwana waxba haysan ayaa ugu yar dadka isdila qof bini aadam oo isagu nafta iska qabta dadka isdila waxa ugu badan kuwa galbeedka jooga hadday badhaadhatay maxay isu dilayaan may noolaadaan waa dhalanteedkii dadkii gaadhay way u cuntami weyde dabeetana ka taga bay is idhaahdeen mala xagga kalaaba war jiraaye idan ayuha alaxiba taladu waxa weeyaan ilaahayna abuuray baa yaqaana naftani waxay ku islaaxayso isagaa abuuray isagaana garanaya waxay ku islaaxayso wixii ay ku islaaxaysayna rususha laynoogu soo dhiibay rusushuna waxayna bareen inaynu rabbigeena caabudno qof bini aadam oo qumman oo toosan noqonno si aynu natiijada wanaagsan aakhiro u heli karno adduunkanna waxaa laynoo sheegay inuu imtixaan yahay wixii laynagu imtixaamo inaynu ama ku sabirno ama ku mahadnaqno haddii caafimaad lagu siiyo inaad mahadnaqdid haddaad xanuunsatidna inaad sabirtid hadday noloshu sidaa noqoto way fududaanaysaa dhadhan iyo macaanna way yeelanaysaa waayo طumaaniinatu اlqalb qofku hadduu helo iyo ilaahay raalli ahaanshihiisa wax ka maqani ma jiraan walidaalika baa culammadii waaweynaan rag ka mid ah ibraahim ibnu ladham baa waxaa laga sheegay waxaa la yidhi jeex roodhiyo qallalan ayuu webiga furaad darsaday roodhi qallalan hadda qiyaas ayuu webiga darsaday markaasuu goostay nimcadaannu hayna hadday boqortooyadu ogtay buu yidhi way nagula diriri lahayd ninkaasi roodhi engegan buu adduunka sitaa wuxuu ku iidaantayna waa biyo meel maraya webiguu darayaa si uu u raamin karo waxaanu leeyahay low calamat ilmuluuk hadday ogaan lahaayeen boqorradu waxaannu nimco hayno way nagula dagaalami lahaayeen waayo ninkani طumaaniinatu اlqalbi buu hayey ilaahay buu rumeeyey caabuday ku kalsoonaaday noloshuu u arkayay waxa ay tahay dhadhankeeduu garanayey nolosha hadafka laga rabuu garanayey sidaa awgeed bay u fududayday u arkayeen nin cala ariiqa jidkii sax ahaa haya inuu yahay idan waxa kaa maqan maaha waxa qofka ka farxiyaaye waa waxa kugu jira iyo waxa aad dareemayso iyo sida aad u fakarayso iyo waxa hamiga ku haya kaas baa qofka ah waxa farxad geliya ayuha alaxiba waxaa dhibtu inaga haysataa waxa weeyaan dadka mawaasiintii baa laga qalday wixii ay wax ku qiimayn lahaayeen waxay wax ku qiimayn lahaayeen baa waxa laga dhigay wax bini aadamku ka qiimo badnaa gaadhi iyo daar iyo waxaasi maaha wax lagu qiimeeyo qofkii mise daarood buu leeyahay qiimihiisu maaha mise gaadhuu wataana qiimihiisu maaha gaadhigu wataa noocuu yahayna qiimihiisu maaha qofku intuu rabbigii ku xidhan yahay u dhow yahay buu qiimihiisa dhabtaa yahay taasun baana aakhiro marka la isugu yimaado wax anfacda adduunka inta la joogana kadeedka qofka ka biisa ilaa adduunka adoo waxaystaad kadeedan tahay haddaanad deganayn marka sidee su-aasha meeshan ku qoran waxa weeyaan sidee loo gaadhaa guusha dhabta ah si fudud baa lagu gaadhaa dhammaantiinna waa gaadhi kartaan waa jidkii nebi maxamed inaad raacdaan calayhi salaatu wasalaam dhammaantiin waa gaadhi kartaan dadka ha xamanin ha caayin ha maagin akhlaaqdaada hagaaji bini aadamka si fiican ula dhaqan waxaad ka xoog roontay waa cadaalad samee salaada iyo zakada iyo cibaadaadkaaga samee akhlaaqiyaadkaaga ku dhaqan waa in nin waliba awoodo in lacag u baahan maaha iyo magac iyo maamuus uma baahna waa in qof waliba awoodi karo idan waxaan rabaa inaan idin idhaahdo guusha dhabtaa sidee loo gaadhaa haddii la yidhi dadkoo dhammi waa gaadhi karaa nebi maxamedna wuxuu yidhi dadkoo dhan baa jannada gelaya ilaa man abaa mooyaane ninkii isagu diida mooyaane dadku jannaday wada gelayaan buu nebigu yidhi ninkii diida mooyaane oo yaa diiday baa la yidhi oo wuxuu yidhi ninkii raacaana jannuu geli buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dee ninkii diidaana ay raaci waayaan isagaa diiday idan inaad guulaysataa kuma xidhna inaad yar tahay iyo inaad weyn tahay kuma xidhna inaad lacag haysato iyo inaanad haysanin kuma xidhna inaad madaxtay iyo inaanad ahayn kuma xidhna inaad cilmi badantay iyo inaad cilmi yartay waxay ku xidhantao keliya itijaaha nololeed xagga aad u jeedisa uun directionka aad u jeedee raacaysa ma waddada xagga ilaahay qabataad maraysaa mise waddada xagga naarta qabataad maraysaa
waddada xagga ilaahay qabata waad mari kartaa adoo lacag liya adoo faqiir iyo adoo waxaysta iyo adoo maamusleba ta xagga naartana intaba waa lagu mari karaa labadaa wadda inaynu kala dooranno ayuunbay ku xidhantahay guushu inta ay leegtahay ilaahay waxaan ka baryayaa subxaanahu wa tacaala inuu dariiqa xaqa ayna tusiyo اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا واغفر لنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا واغفر لنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.